السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غيرت من الباجوكتان وسلامتهن ومحمد فارح وحافر مي برنامج كي ويلكم كوربس ابليكيشن كيسا فيس 1 كي قيبتي سي كواد ايا فرمي قيبتي سي كواد وحو بلامايا بشان ku jirna January wuxuu dhamaanayaa ilaa bisha lixaad. qaybta koowaad ee barnaamijkan waxaa loogu dan leeyahay oo kaliya waxaa la rabaa inay buuxiyaan dadkan halkan aan idin sheegay halkan ku xusan dadka ay keenayaanna waa idin sheegi doonaa applicationkana hoos linkiga ayaa idinku soo bandhigi doonaa ciddii rabta ay buuxiso ha buuxiso laakiin intaad applicationka buuxin waxaa muhiima inaad macluumaadkan aan ku siinaya aad ogaatid applicationka ha buuxinin haddii aadan sidan ahayn waa ina horta 5 qof ahaataan oo Mareykan oo passport haysto ama green card haysto oo isku tagay 5 qof oo raba inay dad qaxootiga keenaan dadkaas qaxootiga ah familkooda ma familkiina maaha dowladda Mareykan ayaa ku dooraysa cidda keenaysid waxaad lagu doorayaa qaxooti jooga Nepal qaxooti jooga Afghanistan qaxooti jooga Ukraine caalamka meel walba ha ka joogay cidda keenaysaan ma taqaanid hadaad applicationka buuxisid kaliya fi sabiilillah aad ku keenaysaa marka dadka ma dooran kartid waa lagu doorayaa labo 5 qof 5 qof oo applicationka buuxinayo waa inaad background check qasab aad martaan fingerprint iyo wax walba aad maraysiin background check waa la idin baarayaa ama online ah ama la idin baarayaa markii la baaro criminal record hadaad ahayn oo aad baataysan hadaad criminal record mid kaga jirana waa la saarayaa 5 qof oo clean ayaa la rabaa saddex hal qof oo idin kamid online course ayuu qaadanaya class ayuu online ka qaadanaya qaabka qaxootiga loo soo dhaweeyo qaabka loo qaato barnaamijkan wuxuu yahay macluumaad ayuu helayaa information waa easy class shahaado ayaa qofkaas la siinaya qofkaas markii shahaado la siiyo 5 qof oo isku tagay waxaad buuxinaysiin qorshe dadka ku caawisaan qaabkaad ku keeni lahaydeen qaabkaad ku caawin lahaydeen gurigaad u kireen lahaydeen 9 bari inaad saa ku caawin lahaydeen qorshahaas markaad qortaan waad saxiixaysaan page-ka qorshahaas aad ku qoraysaan waa 2 page uu ku jiraa website-ka waad print garanaysaan qof walba magaciisa iyo signature-ka iyo date-ka ayuu siixayaa documentigaas uu upload garanayaa oo system-ka gelinayaa shanaad qofkii aad keenaysaan inta qof aad rabtaan qoran kartaa inaad keentaan laakiin qofka rabtaa inaad keentaan calaa qof waa $2,275 inaad haysaan boqolkiiba 60 haddaad 5 qof rabtaa inaad keentaan ku dhufo $2,275 boqolkiiba 60 lacagtaas intay ahaato waa inaad haysaan haddaad 3 qof rabtaan 2 qof rabtaan 1 qof rabtaan idinkeedin jirtaa jeebkiina lacagtiina ayaa ku xiran tahay boqolkiiba 60 unbaa muhiima inaad haysaan lacagta rasiid ayaa laydinka rabaa bangi ah inaad haysaan caddeena lixaad applicationka ayaa la gaaray applicationka aad kala garanaysaa waad buuxinaysaa applicationka hoos ku qoran yahay sayidisha hoos ku xusan yahay 5 magac ayaad ku qoraysaan 5 magac markaad ku qortaan oo magaciina aad sheegtaan ka bacdi qof walba addresskiisa informationkiisa basic uu sheegayaa ethnicity-giisa uu sheegayaa madowba ma cadaanba wuxuu yahay uu sheegayaa meeshaad joogtaan addresskiisa dhan qoraa telefonkiisa emailkiisa da'diisa genderku yahay nin miya mise naag whatever wuxuu yahay uu qorayaa ka bacdi qaabka aad ku maqasheen barnaamijka welcome corps aad sheegaysiin waxaad qoraysiin diyaaradda airportka dadkan kasoo degayaan meeshaad kusoo dhawaanaysaan diyaaradda rabtaan meesha rabaan kusoo degaan garoonka ayaa sheegaysiin ka bacdi IOM ayaa laga yaabaa dadka inay soo qaado promissory note ay ka saxiixdo macnaheedu waxaa waaye tigidhka diyaaradda waxaa laga yaabaa IOM inay ka bixiso oo tigidhka diyaaradda halkaas la keeno promissory note qofka siixaya qofka tigidhka hadhow waxaa laga rabaa inuu celiyo markii la keeno dadka qaxootiga ku yimaada yaqaano ama dadka dowladda Mareykan soo qadaa la yaqaano sidoo kale anoo kale markii la soo qaaday waxaan siixay tigidhka waan siixay 950 in lagu leeyahay aan kaniisadda world charge aan u celinayo ayaan saxiixay marka ayagana kale ayaa laga rabaa ka bacdi documentyaasha ayaad upload garanaysaa waxaad upload garanaysaa documentyaasha maxay hadaba waxaa weeye in 5 qof mid idin kamid ah uu kala qaatay shahaadadiina uu hayo halkan ayaad gelin application dhex gelinaysaa ku dalab garanaysaan welcome plan-kii qorshihii oo 5 ah wada siixideen oo isku afgadan dadkan keenaysaan caawinaysaan dhaqaale 9 bari
ayadana waad gelinaysaan oo documentiga wada siixdan aad gelinaysaan qofkii $2,225 aad ka dhigaysaan boqolkiiba 60na receipt bank oo cadeynayana ayagana waa upload garaysaan documentiga halkan aad gelinaysaan kabacdi applicationka waa submit garanaysaan haddaba applicationkan haddaa rabtid inaad caawisid dadaada aqoonin oo keliya ayaa buuxin karaa dad badan oo Soomaali dhalinyaro qaasatan ah ayaa yimid ay weydiiyay qaabkay gabdhaha u badnaayeen waxay ugu dhaheen dad aan rabnaa inaan keeno aanan aqoonin barnaamijkii qaybtiisa koowaad rabnaa inaan ka qayb galno phase 1ka aad u farxay run ahaantii dad badan oo Soomaaliya oo dad waaweyn waxay leeyihiin qof aqoon maxaa u keenaa qof Ukraine joog maxaa u keenaa qof Kristaan joog maxaa iga galay xogaa arxan daraad muudisaa markaa weydiisad ayaga sida ku imaadeenna qaxooti ayay ku imaadeen yaa ku soo qaaday markaa dhahay sida ku imaada Mareykan yaa lacag diyaaradda ka bixiyay yaa qaxootigaas ku sponsor gareeyay kaniisadda ku soo qaaday dad ay lacagta ka soo aruurisay masaakiina hadda markay kaniisadda tagaan baasarada jaajarada waa dadka Kristaanka dadka lacag ka aruuriyaan dadaan keenaynaa qaxootiya keena lacag dadkaas sadaqa loo bixiyeen baan dhamaanteen lagula keenay inaad ka faantid maaha marka qofkii raba inuu ka qayb qaato ha buuxiyo fi sabiilillah dadka ku caawinaya barnaamijkan yaa la jibin dadka raba inay fi sabiilillah dadka ku keenaan way ku fiican tahay way humanity fiican bani aadamnimo fiican dad qaxooti ah dhib iyo dagaal sideenoo kale ka soo cararay inaan keeno lacagteena aan ku bixino waliba waxay noo tahay arrin fiican mataqaana guul ayay noo tahay anaga qaxooti baan nahay qofkii awood waxaan leeyahay ka qayb qaato gunaanadkii badan oo sidoo kale Soomaaliga soo wax meel biga soo wadiiyay imaaday soo weydiiyay sanadkan dadkan qaxootiga la keenay maxay yihiin 5,000 oo qaxooti oo la keenay waa sidatan dadka Mareykanka uu soo qaaday sanadkan waa in qasab dadkan ay qaxooti yihiin Mareykankana uu qaatay waa warcad waa Soomaali cad waa qofka la keenayo waa in oo Mareykanka keenayo waa inuu qaxooti ahaada Mareykankana uu approve gareey qaato qaybta koowaad hadda idin sharaxay barnaamijka iyo qaybta labaad oo June bilaaban doono ilaa December socon doono qaybta labaad laakiin adaa qofka dooranaysa qaxootiga dadkaagii haddii ay Mareykan ay qaxooti yihiin oo la qaatay Mareykanka qaatay waad keeni kartaa waad dooran kartaa applicationkaas laakiin ma furmin bishii lixaad ayuu furmayaa dadka xamar ama Hargeysa ama Caawdo meelka Kismaayo ka soo baxayo oo hadda raba inay qaxooti soo galaano leedima qaadanayo hadeertan sanadkan waxaa loogu talagalay kaliya 5,000 oo qaxooti ah oo Mareykanka uu qaatay uu haysto magacayaashooda da'dooda ciidooda meeshay joogaan ha isku daalin marka sanadaha dambe haddii wax furmaan barnaamijka uu sii balaarto oo loo qof walba qaxootiya ama qof walba kaar ahaa حتى قف كارك هست هذا ما فرنا كار قحوتي هست عملي قاضي تقولين ماي مريكا ما قاطع واش واش لو كار قحوتي هست وانا مريكا قاطع كبعد لو كيني كرا كلي كار قحوتي هست عني والي قاضي ما في Soomaaliga resettlement program وانا هستا دي بودجين مريكان وانا UN توجد بسا مريكان كدي بودجين الوصية هدات قحوتي عشق نوتا رداب اما كاكوما اما يمن اما إثيوبيا ميلب وعند بودجين قحوتي هستا ayaa loo qaadi karaa kaliya dadka sanadkan ayaa loo keenaya 5,000 qof oo qaxootiga waa barnaamij aad iyo aad u dhaqso badan oo dadka dhaqso lagu keenayo Mareykanka barnaamijka Canada ee group 5 uu ka duwan yahay kan group 5 Canada dadka ayaga dooranaya dadka rabanaya dooranadkooda qaxooti mandate u suuban eelna waa loo keenaya laakiin kan uu ka duwan yahay Mareykan xogaa uu ka yaraadak yahay group 5 magaca 5 qof oo Mareykan uu ka yahay kaliya laakiin waa in dadkaas ayaga la keenayo Mareykanka uu qaataa marka dadka u sheega yaa laga waalin ha loo dajiyo sanadooyinka dambe wax dhici doona ma naqaan laakiin sanadkan 2023 dadka qaxootiga ee Mareykanka uu qaatay kaliya ayaa la keenayaa Mareykan dadkaasna Mareykan waa u diiwaan galay sanadkan waa hayaa fiidiyoga la wadaga dhamaan asxaabtiina fikradiina ka dhiibta ma rabtaa inaad dad qaxootiga aadan aqoonin keentid fi sabiilillaahi هذا سؤال شهادات هاي application كان بوحي ده أقولين عاوي العكا بحي كان لكن هذا الربين ده أقولين هذا كينين application كان حبوحين وما سنتهين يلا بجوكتان لو ذاك فيديو كان أصحابتينا ونشيغا أرين كان عصب
iyo dadka la rabo in la keeno Maraykan